waxaan rabaa walaalayaal nin walbaba ilaahay shaqo ayuu u dhiibay. ilaahay shaqadan cilaajka ah ayuu subxaanahu wa tacaala iyaanoon cilmi u lahayn ilaahay ii dooray. ilaahayna subxaanahu wa tacaala in badan oo xanuunsan la ildaran cudurradan shayaadiinta ah, jinniga iyo insiga iyo sixirka iyo dhammaan xanuuno fara badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkii qur-aanka ah ean akhrinayay ilaahay ku daweeyey. daweeyahana waa ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan rabaa walaalayaal maanta inaan si gaara dadka soomaaliyeed ee u danqanaya dalkooda. walaalayaal soomaaliya in badan ayaa la dhibaateeyey loogu talagalay inay dhammaanteed baaba'do. haddii badaheeda nuclear lagu shubi lahaa, haddii hub la isugu dhiibi lahaa, haddii in badan la rafaadin lahaa, intaasoo haddii raashin dhacay loo keeni lahaa oo loogu soo dhiibi lahaa ganacsatadooda ama ay usoo qaadi lahaayeenba, intaasoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weeye wuxuu ku siiyey iyagii ayuu caafimaad iyo barako ilaahay ku siiyey. waxbana waa la oga qaadi waayey. waxaan rabaa walaalayaal annagu markaanu ilaahay aayaadkiisa akhrino shayaadiin ayaanu qabanaa. shayaadiintana waa laba nooc sida ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay. shayaadiin insu waljin ayuu ilahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala. wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaadiin insu waljin yuuxii bacduhum ilaa bacd suqrifa laqowla quruura. sidaa awgeed walaalayaal shayaadiinta ilaahay sheegay ee jinniga iyo insiga ah waxaa weeyaan walaalayaal waxay maaragtay isku kaashadeen in dadkan soomaaliyeed ee muslimiinta ah 100% la fasahaadiya caqiidadooda. waxaana si toosa usoo qaaday weerar shaydaanka malcuunka ah ee ilaahay hortiisa ku dhaartay horay iyo gadaal, bidix iyo midig inuu uga imanayo dadka muslimiinta ah si uu u fasahaadiyo uguna dhibaateeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala caqiidada uu siiyey. waxaan rabaa inaan kuu sheego ma laga yaaba inaad rumaysato ma la sixri karaa qof? ha, waa la sixri karaa. ma jiraa sixirka? ha, wuu jira. nebi maxamed baa la sixray sala allahu calayh wasalam. ilaahayna aayado ayuu uga hadlay maxaan ku dhaha sixirka iyo arrimihiisa. sidaa awgeed walaalayaal haddaad tahay qof soomaaliya ama caamo noqo ama culamo noqo, dalkii soomaaliyeed waxaa weeye waa la sixray. laakiin waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo wadaadkan ma waalan yahay. maxaa yeelay maba aaminsanadba inuu sixirka jiro. sixrada soomaaliya loo sameeye waxaa ka mid a in dadka soomaaliyeed ee ehelka ah, wiil iyo abtiga ah, noloshooda inaanay isku imaanin, kaasoo la yidhaahdo sixru tafriiq. soomaaliya waxaa loo sameeyey sixirka la yidhahdo tafriiqa, kaasoo lagu kala geeyey. xaqiiqatan maanta soomaaliya waxaa la kala waday wiilka iyo aabbihii, waxaa la kala waday hooyada iyo gabadheeda, waxaa la kala waday kuwii dad isku xigay ee ehelka ahaa ayaa lagu kala kaxeeyey sixir. laakiin you don't believe it. adi ma aaminsanid. waxaad leedahay wadaadkan uu waalan yahay. waa maxay sixirkan iyo waxan uu sheegayo? malaayiin shayaadiina oo jinni ah loona soo adeegsaday sixirka dalka loo sameeyey ayaa ilaahay gacanteennaa midigta ah soo geliyey annagoo ilaahay aayaadkiisa ku qabanay. waraysyada aanu ka qaadnay shayaadiintaasi waxay sheegayaan shaydaanku waa kadaab, laakiin ina badsha rabbika la shadiid. shaydaankaas annagu ma aanan qaba, ilahay baa qabtay. markaanu su-aalnay waxyaabihii noogu yaabka badnaa annagoon weydiin xataa ay ku dhawaaqeen waxaa ka mid ahaa soomaaliya waxay ka kooban tahay 7 min raas casar ila raas kamboni. waxay leeyihiin 7 sabcada siday u samaysan tahay waxaa naloo soo dhiibay sixir oo aanu ku wareejinay. oo maxaad ugu tala gasheen? dalkani inaana qof soomaaliya lagu arag, mid dhintay iyo mid dhoofay in laga dhigo, dhaxal ahaanna aanan dalkan ay la wareegaan kuwa aan soomaali ahayn. sidaa awgeed walaalayaal adiga shaksiyadaada war iyo wacaal ma u haysaa sixirkan dhibaatada uu leeyahay ummadda soomaaliyeedse waxa uu ku hayo war iyo wacaal ma u haysaa? maxaa maanta looga aamusay? maxay b b c da u sheegi la'dahay oo u oran la'dahay dadka soomaaliyeed waxaa farakool ku haya sixir iyo jin iyo il? lagama hadlo idaacadahan balbalaaran ee ay leedahay soomaalidu. maxaa looga hadli la'yahay sixirka iyo waxyeeladiisa? sababahaasoo dhani maxay yihiin? waa wax aad iyo aad loola yaabo in laga aamuso, mana qurux badna in sidaa la yeelo. waxaanu codsanaynaa walaalaheena muslimiinta ah in arrintaa iyada laga dhiidhiyo
badbaadada looga bixi karana waa in ilaahay loo cararo subxaanahu wa tacaala fafiruu ila allah meesha keliya lagu fakanayo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa oo loo cararo waxyaabihii ugu yaab badnaa waxaa ka mid a sixirada aan arkay walaalayaal ee aan ku arkay inta aan aayaadka ilaahay akhrinayay ee aan ama qof la sixray ama shaydaan dhawaaqiisa aan ku arkay waxaa loogu talagalay dadka soomaaliyeed shaksi walba ka mid a inuu gaaro sixirkaas waxaase ilaahay mahaddiisa sixirku inuu yahay ilaa biidni illaah wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah kuma dhibi karaan dadka suxarada ah sixirka cidna waxba kuma yeeli karaan ilaa ilaahayga casiiska ah inuu ogolaado jalla jalaaluhu sidaa awgeed walaalayaal waxaan qof walba oo soomaaliyeed ku baraarujinayaa war dalkan iyo ciiddiisa waa la sixray dadkiisuna way sixran yihiin waxaana loogu talagalay yuriidu an yukhrijakum min ardikum bisixrihi in looga saaro arladooda sixir la waayo qof soomaali ah oo waxgal ah ama dadkiisa anfacaya ama dalkiisa anfacaya adiga shakhsiyaddaada is-cilaaji awlaadaada cilaaji ka taxadar waxaan dhibaatada ah ee dhibaatada soomaaliya ilaahay uga ducee oo waxaan leeyahay idaacadaha fadlan walaalayaal honkayban iyo maxaan ku idhaha isha universal waa badan tihiin war maxaa diiday inaad mawduuc soo qaadaan ku saabsan dhibka uu ku hayo sixirka waxaanu odhan karnaa culummadiina way ka gaabisay idaacadaha iyaga soomaaliyeed ummadda waxay in arrinka isagaa loo kaco loona istaago si dadka lagu wacyigeliyo dhibaatadan sida loogu hortago maxaa yeelay qofkan dadka sixraya looma sheeginba lagama wacyigelinba wuxuu moodaa wax caadiya diin baa dadkii maaragtay u haystaan sixirku sidiisaba ma bannaana qofka sixrana waa qof uu dilay weeyaan xukunkiisana waa qofka saacadka in la dilo waxaan leenahay soomaaliyey adiga shakhsiyaddaada is-cilaaji gurigaaga qur-aan ku akhri adiga isku akhri awlaaddaada ku akhri arrinka isaga ah waa arrin xasaasiya weeyaan waana xaqiiqo dal ma la sixri karaa dad ma la sixri karaa shaksi ma la sixri karaa waa xaqiiqo weeyaan waa xaqiiqo maanta soomaaliya si walba u fakar maxaa isku taagay war waa maxay madaxdoodii baa sixran ganacsatadoodii baa sixran culimmadoodii baa sixran dhallinyaradoodii baa sixran ilaa ilaahay miduu ka badbaadiyey mooyaan maxaa laysku haystaa ama dadkan miyaanan wada dhalan miyaanan ul iyo diirkeed ahayn waa may waa tafriiq baa ku dhex jira tafriiq soomaaliya waa la kala geeyey waxaana laysugu soo noqon karaa shaksi inuu qof walba iskii qur-aan isku saaro waxaanu idinku waanayna walaalayaal ilaahay wuxuu inoo sheegay subxaanahu wa tacaala dawada dhabta ah wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmatun lilmu'miniin walaa yasiidu aalimiina ilaa khasaara ilahay wuxuu inoo sheegay qur-aan inuu soo dejiyey raxmad iyo dawo u ah kuwa alla iyo rasuul rumeeyey haddaad tahay mid ilah iyo rasuulkiisa rumaysan waxaa kugu filan oo ku kaafinaya aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay dib ugu noqo aayaadka ilaahay isku akhri awlaaddaada ku akhri naftaada ku akhri waxaan dhammaan walaalayaal walaalay ku farxad gelinaya inaan caafimaaday dibna aan ugu soo noqon doono saaxada youtube-ka howlihii ummadda aan u hayana dib aan u bilaabi doono ilaahay ayaan uga mahadinayaa dhowaanna waxaan iman doonaa insha allahu tacaala magaaladii asal aan ka imid boosaaso ayaan tegi doonaa insha allahu walaalayaal allah idin dhowro allah idin xafido ku baraaruga in dalkan iyo dadkiisaba lala doonay sixir uuna qabtay intuu ilaahay u idmay inta kalena ilaahay subxaana wa tacaala uusan u qadarin ilahay waxaan ka baryaynaa inu ilaahay buriyo baabi'iyo insha allahu tacaala suxarada iyo kuwa la maagan jabka iyo maaragtay iyo geediga dadka soomaaliyeed waxaana ka mid a dadka yaacay ilmahan tahriibay guryahoodii waxaanu odhan karnaa sixir baa looga saaray wasala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam